waliba waxaad ogaanaysaa markaad dadka iska cafido iska dulqaadato iska saamaxdo dan ka ficil la qaadanin xumaanta aadan la wadaagin laba arrimoodba waad heli ilaahay oo ciz iyo sharaf ku siyaadiyo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam ma zaada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan adoon ilaahay cafi uu dadka cafiyo iska jeesado iska saamaxay sharaf waxaan ahayn ilaahay ugu ma siyaadiyo waa cagsiga sidoo shaytaanku ugu leeyahay shaytaanku markii wax lagu sameeyo wuxuu ku leeyahay waa dulowday waaba lagu fududaystay war argooso oo wax iska celi oo raganimadaada muuji illa waaba lagu duleystay ilaahay agtiisana sida si ka duwan waay ilaahay agtiisa waxa way cafiga ciz iyo sharaf keena Soomaali marka ciz iyo sharaf horta waad heli waa mid labaade inta aadan la ficiltamin oo ruuxii adiga aad hadal wanaagsan ku tirada ama aad sagaba jeedsataba malaa'ikta ilaahay baa ku difaacaysa inaad adigu isdifaacdo iyo in xaq ilaahay laga difaaco keeroon حق إلهين لقاتي فحرم سيداس درادت حديثك النعمان بن مقرن المزني النبي صلى الله عليه وسلم يحبوها هذا يقول نبا نين عايب النبي أكتي صلى الله عليه وسلم نبا نين عايب نينكي لا عايب أي مركي لا عايب وحو إلى هذا عليك السلام يا وحاسي وحاسات كان يا كانت عليك السلام قرأ markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabiguna meesha jooga ama abu nabi sallallahu alayhi wasallam ama inna malakan baynakuma yadhubbu anka malak baa idin dhaxeeyay nabi sallallahu alayhi wasallam oo ku difaacayay kullama shatamaka hada qala lahu bal anta wa anta ahqqu bihi markasto uu ku caayo malaga u jawaabahay wuxuu ku lahaa adiga sida ah waxa aad ku tirina adaam mudan ada istaahila markaad adigu tiraahdo alayka salaam ya warnabadi korkaaga ha ahaato sa ugu jawaabtana malagu adigana uu ku jawaabayo wuxuu lahaa bal alayka wa anta ahqqu bihi bal korkaaga salaami ha ahaato adiga salaamta mudan ya adigana waxa tiraahdo malagu ku jawaabay waxa lagu yiraahdana malag baa ku difaacay saas daradeed baa xadiis kale waxa ku sugan in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu fadhiyay isaga oo nin saxaabada kamida uu nin caayay isaguna uu soo u jawaabay ninkii baa markii dambe xanaaqay uu jawaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam meeshii buu ka kacay ninkii wuxuu rasuulka ilaahay intii la caayo dhawaad fadhiday markaan anigu ragga iska celiyoon jawaabay maxad u kacday nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam inta dul qaadanaysay malag baa ku difaacay markaad bilowday inaad isdifaacdana shaydaan baa meesha soo galay meel meesha shaydaan soo galayna fadhin maayo nabi sallallahu alayhi wasallam macna